waxaa la gudboon totaliba gabdhaha Soomaaliyeed anoo nafteydana ku waaninaya ka Soomaali muwaadin ahaan inay totaliba joojiyaan shuruud la'aan qofkaas laga yaabo inay ku weynayso waxa lagu leeyahay aniga ma jeclid kalsooni ugu ma qabsaniro aniga inaan kugu jecelahay maahan adna ay ugu jeceshahay sawirka aan ku soo diraayo si kartaa jirto aniga ma hadana sawir ku soo diraayo ugu jeceshahay ma video aan ku soo diraayo ugu jeceshahay ma ahan meel baarti oo wada tagnan ka wada qadeemay ama ka wada cashanayna ugu jeceshahay siyaabo kale calaamado kale oo qofkaan inuu ku jecel yahay ama kalsooni oo ku hayo aad ku ogaan kartaa jirto marka totaliba shuruud laba iga dhigi karaba just shakhsiyan aniga qofka aan jecelahay mustaqbalka aan kale waan dareemi karaa si fudud ma uga dhaadhacsan karaa koo horta bara gabadha Soomaaliyeed inay si fudud ninkaan uga dhaadhacsan karto qofka ku jecel ogaan kartana qofka nooc uu yahay fahamtay سير عبر كسولة هذا جاشي سير يسود رجوله it can't be possible أنا بمرت أنا كل إيش كم سنة الجبرين هالسومالي بيحن كله جوجي هذا سنة ترتم جوجي أبغى كل سنة جوجي waayahay yaxyo dhaliishadu ku soo noqotay ka rag ahaan maxaa yeelay dadka shuruudaha la yimaado horta rag u badan yihiin saaxiibay haday aaminsantaa muuqaalkaas ii soo dir ii kala kici caaw waxa ku seexda soo dir marka maxaa kaga jawaabaysaa samira gabadha wiilka yiraahdo abaan qadiya uu kalsoonta kalsooni isiinayso sawirka ii soo dir oo gabadha tusaale ahaan ugu xiro qodobkaas gabadha ma u dirto macnaheeda adiga dareemi kartaa qofka eeda leh wiil miskiin ah oo iska bula ah oo habeenkii keligiis socdo oo lagu qasan yahay gabadha la jecel yahay tan ayda qaadana soo dirto wiilka soo dareemi kartaa shuruudaas la yimid wuxuu yiri abaayo haddaad jeceshahay ama kalsooni ugu qabto muuqaalka noocaas ay soo dir ayadana waxa laga yaabaa inay jeceshahay sawirkina ay sidaa ku dirto marka sidee gabadhan ku eedeysnaan kartaa aqliga salinka ah عادي أنا هلا قبل أيوة قاون استرتو في يوميا جت سليماني سير تجرأ لأن أخو جعل هاي وأخو كرسونا هاي أدو قاون صورة سوق على من فيديو سوق قاون يصدر أما أدو قاون إيه إنه هتل يقول إنه هتل قاعد لسه استرنا أصلا هاي لكن فيديو يصدر السوشيال ميديا يصدر أداك السوني تستعرفته قبل تست قدرته marka positionkaas marka joogno rag miya qaldan mise dumarka qaldan say u qaldan yihiin waa qalbiin qayb ka qaadanaya laakiin qofka isqaawiyay qofka soo diray ee soo qadimay qofka oo sariirtiisa soo jeeyo loo soo diray xiriirkeeda inuu ku badbaadsanayso soo laga miyaa mees dhahayo xiriirka badbaadinayo lana gabadha marka hore baad isqaawisay xiriir meesha ma yaalin xiriirka saxda ah wuxuu yahay labada qof in ay asturan mustaqbal iska rabaan wanaag ku dhaxay inay guriga aqalgalan kadib isqaawi doonaan yaxay Ismaaciil adigoo rag mataliyeed halkan noo fadhida ninka mustaqbal ujeedka ah iyo kan la laabka lehna rag baad u taho wad kala sheegi kartaa marka si ay gabdho badan uga faa'iideystaan kee daacada ma qofka shuruudahaas la yimaadee dhaho anigu sawirkaas ii soo dirina quruxdaada arkaan raba saa u taalid ina arkaan raba mise midka kale ninka daacada ah wala yaqaana mustaqbal doonka oo gabadha si wanaagsan u dhaqo sida aniga waalidkana soo koriyay dadkii naga horeeyay generation naga horeeyay laakiin ninka wanaagsan aan wanaagsaneyn ee gabadha inuu xumeeyo rabo gabadha ka sifan lana ninka fiican gabar fiican oo helaa ninka xunna gabar xun oo helaa lana bulshadu waa simanta qabaay lana gabar isqaawisay wiilkaasna soo qaawina isdira labadooda wada qaawin hadhow isdagaalayaan waa kadib social media soo gelinayaan qofkii xanaaqay lana markii horeba meesha kuma jirto wax oo labadooda ku dhex jiro xoog leh lana xiriir sax ah oo nool oo naf leh kuma jiro oo wax fake ah labadooda iska dhacay waayahay gabdhahana ku qaldan ma la dhihi karaaba ragga hub oo waxay sii diyaarsanayaan ay gabadhan kula sii dagaalamaan markii lacag xumayso oo sawiradan iyo muuqaaladan ay u soo direysaba hub ahaan uu u keedsanayo si hadhow markay isugu dhacaan uu yiraahdo alaabtan soo gelina hadii kala caadi iska dhig midda koowaad marka horeba gabadha waa inay quality isku yeeshaan ayada wiilka qiimaha ka raadinaysa mid lamid ah leedahay gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha qiimo badan ayaga hooyo ah ayaga laga raadiyaa wax walba ayaga maskaxda dhameed dadkii ah oo hooyo walba
generationka dadka soo saaraya badinaya waa ayagii waayahay marka gabadha wiilka qiimaha u yeelayso waa inay isku yeeshaa marka hore oo ayada dhulka iska qaado ayada laftigeeda kor isku qaado hadda dhulka isku dhigto uu ku sii istaagaa ninkaan hadhowdina waanadaas waa la is aaminay lacag ka soo qaad waa la is aaminay wiilkan hubkiisii uu diray gabadhan hubkii ayada hadhow lagula dagaalami lahaa ee soo dirtay okay qofka marka maxaa la gudboon markuu heerkaas joogo uu qof aaminay 100% oo wax walba ma aragtay uu qofkaas ku aamini lahaana gabadha markii oo qalad ka dhaco ee u dirto wiilka sawir qaawan wiilkan ay u aragto inay kalsooni kaga raadinayso wiilka kalsoonidii gabadhan ayadii oo ay sawiradii qaawan u soo dirtay oo u arko in uu ku tiigsanayo oo madax furasho mar walba ka qaadanayo oo leeyahay oo ku handadayo ana waxaas ilaa gabadhaas intii ay wixii banaanka imaan lahaayeen oo sumcadeedana dhulku dhici lahayd inay iska tartiibsato marka horeba way gashay si ugu bixi lahayd ay ka fikirto sababta ugu fikiri karto halka ugu dhawaa wuxuu yahay in wiilkaas mustaqbal ay ka raadiyo ninka ragga ah naftirkiisa sida ragga wajilcayn way qalbi jilcayn bini aadan ah haddii si wanaagsan iyo wadooyinka lagu marto mustaqbal inay ku heshiiyaan laga yaabo yaxyow gabar kuugu samaysay aaminaad xumo intaad aamintay aad qalbigaaga siisay waxyaabo badanna aad ugu dartay ku niyad jabisay ama aaminaadii xumaan ugu soo jawaabtay ma xumayn lahayd oo sida wiilasha qaar ay sameeyaan ma ku samayn lahayd gabar aniga hadda nafsadeeda marka soo qaado raga aan markaa mas-uulka ahay maanta gabar hadday xumayso jacaylkan igaga baxdo waa iska qarsana midkaan iska raadsana laakiin ma xumaynaysid waayahay tan social media aan ka soo leexano is-aaminaad xumada dadka isla jooga way dhex martaa oo isku xaafad ku nool oo halkaas ku haasaawa waxaa laga yaabaa gabar intii meel lagu ballamiyo koox kale loo ballamiyo marka waxa samaynayana waa rag oo ku heshiinaya inay hal gabar silacaas marsiiyaan marka kuwa maxaa dhihi lahayd rag waxaa jiro wax qaldan sameeyo balse ay ka arkaan qaladka inay ku sameey karaan dumarka mar walba ogolaanshaha dumarka haddii aan laga helin ninka ragga keligiisa ku sameey qiimihii iyo qaayihii iyo quality-gii ay dumarka lahaayeen aan sii yaraanayo soo nin oo baaba ah oo aan u qalmin in jacayl iyo wanaag iyo ixtiraam la siiyo gabar wanaagsan oo dugsi dhigato iskuul dhigato oo xumeynaa soo meeshaas waxaa ka cad waa dareemi kartaa gabadhaas wiilkaas qiimo ma ahan laakiin haddana waxa keeni karo quality la-aanaa jirto marka maxaa xal ah ama maxaa la gudboon dumarka fiiri samiiro midaa jirto oo yaxya wuxuu yidhi gabdhahan baa eeda saaraya horta adiga wiilka ah oo shukaansanaya wiil yahow soomaaliyeed gabar noocee ahaa doonaysaa markaad tiraahdo gabadhan inay jirkeeda ay ku soo dirto iyadoo qaawan inaad tiraahdo hotel ugu imaad ood saa rabta aad ka samaysan karto waayo gabadha waxaa layidhi waa hilibisa markaad tiraahdo gurigeyga ugu imaa ama hotel ugu imaa wuxuu rabo qofka kaa samaysan karaa ma fahamti si fiican adiga ninka ah wiiligu soomaaliyeed gabar noocee ah baa u baahan tahay markaad saas leedahay waxaa rabtaa gabar iyo mustaqbal iyo gabar wanaagsan inaad hesho mustaqbal inaad hesho ma u socotaa mise waxaa rabtaa inaad ku dheesho gabar hooyo aaba dhaleen waa iga su'aal yaxyaan weydiinayaa su-aashaas iyo wiilasha kaloo lamidoo soomaaliyeed gabar noocee ah baad rabtaa markaad leedahay sawir ii soo dir gabar noocee aad rabtaa markaad leedahay hotel ugu imow gabar noocee aad rabtaa markaad codka ka duubayso hadhowna aad soo bandhigayso ma waxaa tahay ma lagu fasiran karaa inaad tahay wiil daacada oo guur xalaala iyo mustaqbal u socdo maya su-aashu waa maya ka gabar soomaaliyeed ahaan waa maya adigana maya kuu tahay ana maya ugu tahay gabdhaha soomaaliyeed si wanaagsan wuxuu arkayana maya ku tahay mid laftirkeeda way jira ay gabdhaha ku eedaysan yihiin xaawa gabdhaha midka daacadda ah ee edabsan ee ka xishooda ee aan waxaas weydiinin wax kale u arkayaan may samiiro xaqiiqatan horta markaa fiirisid dumarka soomaaliyeed isku mid ma aha laakiin inta wanaag aragga ah baa badan marka inta kale loo barbar dhigo hadda waxaa lagu jiraa wax la yiraahdo digital age wax walba waxaa la garanaya oo powerka leh waa social media marka dadka isticmaalo waa labo dadka social media isticmaalo waa dad
basically dad base ahaan soo dhismay oo qofku markuu oo maaragtay soo barbaaro beeyada uu ku soo barbaaro hooyo aabaha iyo qoyska soo barbaariyay waxa lagu soo barbaariyay qoys fiican buu ku soo barbaariyay haddana isla markaasina qofkan wuxuu bartay waxyaabihii base-ka nolosha u ahaa sida diinta islaamka oo kale qofka waxaa qofkan la kala baray wax saxda iyo wax qaladka waxyaabaha qofka lagu kasban karo iyo waxyaabaha lagu kasban karin waxyaabaha qofka kalsooni ahaan qofka xataa oo maaragtay uu ku fahmi karo qofka inuu sheegi karo qofkii